الله بكرة واصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. iyadoo guud ahaanba maanta dhulka islaamka laga tukaday salaada ciid al-adha ayaa wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi uu boqolaal dadweynaha kula tukaday garoonka dhalinta ee magaalada Hargeysa. salaada tukashada ciida kadib ayaa wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi iyo mas'uuliyiin kale ay hambaliyo bogaadin u direen ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan munaasabadda ciid al-adha awgeed. عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. waxaan ummadda islaamka meel kastoo ay joogtaba ugu hambalyeynaa ciid wanaagsan ee Ilaahayna soo gaarsiiyay iyo gudashada cibaadadeeda. waxaan Ilaahay ka baryeynaa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sanadka soo socdana inagu gaarsiiyo nabad qab bash iyo barwaaqo. waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga mahad celinaynaa nicmada iyo nabadgelyada iyo midnimada aynu haysanno taasoo ay tahay inaynu ku shukrino oo aynu ilaashano. maanta waxaynu halkan isugu nimi haddaynu nahay ummadda Soomaaliland rag iyo dumar caruur nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo jideeyay inaynu maanta oo kale halkan isugu nimaadno oo dadkii aan salaadaha iman jirin ay yimaadaan oo ubadku ay yimaadaan oo haweenka Ilaahay u cudur daaray ay yimaadaan taasoo lagu muujinayo midnimada iyo qarannimada iyo ehelnimada iyo wadajirka. Ilaahay ha inoo ilaaliyo. Ilaahay ha inoo ilaaliyo. waxaan ummadda Soomaaliland meel kastoo ay joogtaba aan Ilaahay uga baryeynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala bash iyo barwaaqo wixii wanaag ay haysatana u adkeeyo wixii ka xunna u hagaajiyo mustaqbal wanaagsanna ay gaadho. sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa ayaan halkan ka salaamayaa iyo dhammaan ummadda Soomaaliland oo dhan iyo shacabka Soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay nabad rayrayn iyo barwaaqo iyo bashbash ciidan ciideeda insha Allah ku gaadha. waxaan u ducaynaynaa ummadda islaamka iyo ummadda reer Soomaaliland yar iyo weynba Ilaahay waxaan leeyahay wixii buka Allah ha caafiyo wixii safarana Allah soo nabad celiyo barakallahu fiikum Ilaahay dambigeena iyo dambiga waalidkeen ba dhaaf. waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay joogaan dhammaan daafaha islaamka waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair. gaar ahaan waxaan salaamayaa Soomaaliland waxaan leeyahay ku ciida bashbash iyo barwaaqo. Ilaahay amniga iyo iimaanka ha inoo siyaadiyo dalka iyo deganaansho iyo nimcada aynu hayno Ilaahay ha inoo siyaadiyo. wixii khilaafee jirana Ilaahay sida wanaagsan ha inoogu dhameeyo saasaan rajaynaynaa. waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka golayaasha iyo cid kasta oo maaragtay mas'uuliyad haysta Soomaaliland waxaan leeyahay guul iyo gobonimo aan u rajaynayaa. Cabdullaahi Raash telefishinka caalamiga Somali News magaalada Hargeysa.